saraakiisha militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo hub ay ku qabteen howlgal ay ka sameeyeen duleedka degmada Afgooye. Wariyaha idaacadda Kulmiye Axmed Abuukar Sabriye ayaa warkan inooga soo diray Shabeellaha Hoose. ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya howlgal ay ka sameeyeen deegaano duleedka ka ah degmada Afgooye ay ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab. deegaanada ciidamada sida gaarka ah ay u beegsadeen waxaa kamid ah deegaanka Jambalul oo hoos yimaada degmada Afgooye, waxaana la sheegay in ciidanku ay halkaasi ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyaga iyo maxalhubkooda, kuwaasi oo tira ahaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaarkood oo la hadlay keenan ay u sheegeen in ay gaarayaan 7 xubnood, kuwaasi oo ay sheegeen saraakiishu in ay ku dhumaaleysanayeen deegaanka Jambalul oo hoos yimaada degmada Afgooye. ciidamada dawladda ayaa sidoo kale waxa ay howlgaladan ka sameeyeen deegaano ka tirsan kuwa hoos yimaada degmada Afgooye, waxaana ay sheegeen deegaanadaas in ay ku jiraan gacanta dawladda balse ay xaqiijinayeen ammaankooda, kuwaasi oo mararka qaarkood ay markaasi yimaadaan xubno ka tirsan Al-Shabaab. waxaa jira deegaano dhowr ah oo ka tirsan degmada Afgooye kuwaasi oo gacan ku hayntooda ay kor ka maamulaan Al-Shabaab, waxaana saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan gobolkan Shabeellaha Hoose ay sheegeen in goordhow ay guud ahaan deegaanadaasi soo gelin doonaan gacanta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. keenan ayaa weydiisay saraakiisha ciidanka xoogga ee uu xaqiijiyay 7daas dagaalame iyo hubkooda oo lagu soo qabtay deegaanka Jambalul halka ay ku dambeeyaan, waxaana ay sheegeen in ay u sii gudbiyeen dhanka iyo magaalada Muqdisho. waxaa xusid mudan in ciidamo cusub oo dhawaan la keenay Afgooye ay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aan horey looga baran kuwii hore u joogay Afgooye ay ka sameeyeen muddooyinkan dambe deegaanada duleedka ka ah Afgooye, halkaas oo ay sheegeen inay ku xaqiijinayaan ammaanka degmada. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe waxa ay howlgalo ka wadeen deegaanada ka tirsan gobolkan Shabeellaha Hoose. dhaqdhaqaaqyadaas ciidan ay ku doonayeen in ay kala wareegaan deegaano dhowr ah oo gobolkan ka tirsan kuwaasi oo ay maamulaan Al-Shabaab, waxaana ilaa hadda ciidamadu ay wadaan dhaqdhaqaaqyadaas iyaga oo maalmaha soo socda sheegay saraakiishu in ay bilaabi doonaan howlgalo qorshaysan oo deegaanadaas ugu dambeyn Al-Shabaab looga saarayo kuwaasi oo gobolkan ka tirsan.